الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى كتاب البيوع. kitaabkan wuxuu ku saabsan yahay axkaamta iibka wa fii gayrihi min almucaamalaat iyo mucaamalaad kale oo dadka dhex mara oo iibka markaa xidhiir lale ama raaca tawaabicdiisa. buyuuc waa jamac, mufradkiisuna waa bayc. baycna carabi waxay u taqaanaa muqaabalatu shayin bishay calى wajhi اlmucaawada. waa shay in loo dhigo oo bimacnaa lagu bedesho, wuxuu doonayaba ha noqdo shaygaasi. sharcan se waa caqdu oo yaqtadii tamliika cayni mutamawalaة bhaman. waa heshiis laba daraf dhex maraya oo natiijadiisu ay tahay ama wuxuu keensanayaa in cayn iyo shay la taaban karo cid la mulkisiiyo. cayntaasi oo maal ah oo lagu mulkisiiyo bihaman, yacnaa wax lagaga iibsaday. oo tusaale ahaan qofkaad gaadhiga ka iibisay, gaadhiga waad mulkisiisay, lahaanshihiisuu ku wareegaya. mulkisiintaasina heshiis idin dhex maray bay ka dhalatay. waxaanaad ku mulkisiisay bihaman oo wixii aad kaga bedelatay. marka arrintaa waa iib baa la odhanaya. iibku marka waa wax bani aadamku ay u baahan yihiin, waayo qof kastaa wuxuu u baahan yahay ma haysto, mar walbana bilaash lagu siin maayo. lihaada ilaahay wuxuu sharciyey dadku waxa ay haystaan markaa inay isdhaafsadaan oo ay isku bedelaan. oo ilaahay baa xalaaleeyey yihi waaxala allahu albeyca waxarama ariba. iibka ilaahay waa xalaaleeyey, ribadana waa xaaraantimeeyey. qofka markaa doonaya inuu ganacsado, siduu yihi alimaamu nawowi raximah allahu tacaala, lazimahu an yatacalama axkaamaha. waxaa waajib ku ah axkaamta ganacsiga inuu barto, oo uu kala barto heshiisyada iibka shareecada waafaqsan ee saxiixa iyo kuwa khilaafsan ee faasidka, iyo axkaamta arrintaasi ay leedahay. labada qof ee wax kala iibsanaya waxaa shardi u ah albuluuqu waalcaqlu waalrushdu waalikhtiyaar. labadu waa inay qaangaadh yihiin, labadu waa inay miir qabaan, labadaba waa inuu tasarufku u furan yahay, oo qaar la jecelo darro awgeed maalkoodii laga xayiray waa inaan ahayn. labaduba waa inay heshiiska doorashadooda ku galaan oon lagu khasbin, oo qofka iibka lagu khasbaa ma ansaxayo. haddii uu markaa yahay weeyaan khasabku mid xaq darro ah, marka qaarkood qofka in la khasbaa xaq bay noqonaysaa. oo haddii xoolo iib gelaya uu haysto oo uu idhaha caruurtii iyo reerkii masaariif uma hayo, kuwan iibi baa la leeyahy. hadduu diiday inuu iibiyo waa lagu khasbaya, khasbitaankaasina waa xaq. marka iibkaasi waa ansaxaya, waayo waa ikraamu bixaqin. arkaanta markaa iibka labadaasi waa ka mid alcaaqidaan waa albaayic walmushtari, labada wax kala iibsanaya. waxaa kaloo dee arkaantii ka mida almacquud calayhi, waxa uu heshiisku ku dhacayo almabiicu waathaman. wixii la kala iibsanayey iyo wixii lagu iibsanayey ee lagu bedelanayey, shayga iyo lacagta. waxaa kaloo arkaantiisa ka mida asiiqa, oo dee hadalka tusinaya qofkani shaygiisii inuu iibiyey, ka kalena inuu iibkii aqbalay. alqabuul waliijaabu baa la idhaahdaa. oo iijaabku waa lafdu lbaayic addaalu cala atamliik. waa iibiyuhu hadalka uu ku hadlayo ee tusinaya shaygiisii qofkaa inuu milki siiyey. gaadhigaygii intaasaan kaaga iibiyey ama kaa siiyey, jagadaydii intaasaan kaa siiyey, waa iijaabkii.
qabuulkuna waa lafdu lmushtari addaali cala altamalluk waa iibsadaha hadalkiisa tusinaya shaygaa la yidhi waan kaa iibiyo intaasaan kaaga iibiyey inuu mulkiyey oo uu ogolaaday inuu milkigiisa iyo lahaanshihiisa galo oo intaa la sheegay uu ku bedesho se ishtaraytu inuu waan iibsaday tamallaktu qabiltu lbayca iibka waan aqbalay waxaa la midka innaga markaan u yaro fiirsaday waxaad moodaa siiqada oo iijaabkii qabuulka aadba uma ilaalino waxaa laga yaabaa labadii qof ee wax kala iibsanayay inaanay hadalkaa isweydaarsanba intaasaan kaa siiye waa siistay dilaaliiniya baa laga yaabaa inay ku dhex jiraanoo arrinta ay soo wadwadaanoo deetana intaasaanu ku dhammaynin dilaalintu ay idhaahdaan marka hadal baa loo baahan yahy waan kaa iibiyey iyo waan iibsaday siiqada waa in la ilaaliyo wey ama waan aqbalay oo siiqada lafteedu waa iijaabkii qabuulku shuruud bay leedahay ta in la ilaaliyo waa inay iswaafaqsan yihin hadduu dhahda bictuka beytii b100,000 ishtaraytuhu b80,000 miyay iswaafaqsan yihin 100 kun baan gurigeyga kaa siiyey 80 kun baan siistay isma waafaqsanadee 100 iyo 80 isku mid maaha iib ma noqonaya kaasi waxaa kaloo shuruudda ka mida inay noqdaan muttasilaan maca almuwaalaat intaasaan kaa siiyey waan aqbalayduna waa inay ku xigto laakiin hadduu iska tago ama muddo kadib uu dhahdo waan siistay intii aad sheegaysay baan siistay isagoo intaasaan kaa siiyey idin ku soo celin maantuu yihi jagadii waxaan kaa siiyey 20 kun waan aqbalay mu odhan kii kale berri ama wakti kadib ayuu yidhi war jagadii aad tidhi 20 baan kaa siiyey 20 kin waan siistaye kaale heshiiska qore kiina kumuu soo celin hadalkii hore waxba ku ansixi maayaan waa inay xidhiidhsanaadaan iibinta iyo iibsashadu hadal xidhiidhsan waa inay noqdaan waa inay noqdaan munajas oo mucallaq lama ogola gaarhigaygaa 10 kun baan kaa siiyey waan siistay hadduu aabbahay ogolaado waxbuu ku xidhay sooma arkaysa iibka ku ansixi maayo taas masalada markaa ku saabsan baycu lmucaaaat oo innagu aynu isticmaalno ma ogola shaaficiyada iyo fuqahada badankooda oo qofkii in shaygii lacagtiisii uu dhiibo isagoon afka ka hadal shaygiina u qaato baycu lmucaaaat baa la dhaa dukaankaa tagtay 2 kunoo shilin baad miiska u dhigtay roodhidii miiska dul taalibad xabad qaatay midkiinna muu hadal ma ansaxaya bay leeyihin qaarkood baa markaa waxay ka soo reebaan waxyaabaha muxaqaraadka waxyaabaha yaryar iska liita ayaa sidaa lagu kala iibsan karaa bay yidhahdeen laakiin wixii waaweyn bilaa hadal laguma kala iibsan karo waayo hadalku waa kii tusinayey qofkani inuu iibka raalli ku noqdeen ilaa an takuuna tijaaratan can taraad inama albaycu can taraad buuhi nebigu calayh isalaatu wasalaam ganacsigii iyo iibkiiba labada daraf mid waliba raalli inuu ku yahay baa shardi u ah markaa raalli ahaanshuhuna waa camal qalbiguu qabto see lagu garanaya inuu raalli ku yahy waa inuu hadlo dee u dhahdo waan iibsaday waan iibiyey waan iibsaday waan aqbalay waan waay halkan wuxuu kaga hadlayaa noocyada waxyaabaha la kala iibsado iyo sida loo kala iibsado wuxuu hi albuyuucu waxyaabaha la kala iibsadaa ama kala iibsigu wuxuu u jamciyey biictibaari alanwaac noocyuu leeyde marka laga ega dhinaca waxaa la kala iibsanayay xaalkiisa 3 anwaacin 3 ashyaa shayaal oo 3 weeye axaduhaa baycu caynin waa qofku inuu iibiyo shay la taaban karo cayntu waa wixii la taaban karo shayga xajmi uu meel bannaan ku buuxiye leh ayaa cayn la dhaha kani waa cayn kitaabku waa cayn qalinkani waa cayn waayo
masaaxo dhulka ka mida buu qaadanaya cayntu waa waxaas cayn in la kala iibsado mushaahadatin la arkayo oo labada kala iibsanayaba u muuqata fajaa'isun kaasi waa bannaanye mar haddii shuruuddii kalena la helo shayga noocaas waa la kala iibsan karaa kitaabkana ayaynu kala iibsanaynaa adna waad aragtaa adna waan arkaa waxaa iyaduna la mida haddii hore loo arkay shayga labadooduba hore ay u arkeen muddada aragtida ka soo wareegtayna shay isku bedela aanu hayn waa guri tusaale ahaan ama waa dhul ama waa gaari horey u arkeen muddadaana shaygu iskuma bedeli karo aragtidaa hore markaa waa lagu kala iibsan karaa wathaaniyaha nooca labaadna baycu shay waa shay iibintii shaygaasoo mawsuufin mid la sifeeye ah lama arkayo laakiin waa la sifeeyey shay nooca iyo nooca iyo noocaasa shay mucayana maaha kani sifaa lagu kala iibsanaya kaasi oo fi dimmati qofkan iibinaya dee dumadiisa saaran oo dee shaygii sifadaa lahaa inuu keeno ayaa laga rabaa hadhow ile sifuu ku iibiye fajaa'isun kaasi waa bannaanye baycu salam baa kaa la idhahdaa shuruud gaar u leeyahy waa inoo soo socotaa oo shay mucayana maaha oo odhan maayo guri aan leeyahayoo jigjigeer ku yaalo sifadaa iyo sifadaa leh maaha waa guri un guri sifadiisu saatay 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 ama gaari sifadiisu saatay saatay sifaa shayga lagu kala iibsanaya shay mucayana maaha baycu salam baa la idhaha wuu inoo soo socdaa isna waa bannaanye fajaa'isun waa mid bannaan oo ansaxaya goormuu ansaxaya idaa wujida haddii la helo fiihi shaygii asifatu sifadii haddii laga helo calaa maa wusifa bihi sidii loo sifeeyey iyadoo ah shayga qofkani shay sifale buu iibiyey iibkaasi wuu ansaxayaa haddii shaygii oo sifadiila uu keeno hadduu sifadii yeelan waayo qofkii iibsaday baa ikhtiyaarka leh oo ama dee kaasunbuu iska qaadan ama iibkii uu fasakhi doonaa wuxuu odhan doonaa kani kii heshiiska aynu ku gallay maaha waay waxaa iyaduna la mida haddii shaygii lagu kala iibsado saambal muunad baa qofkii la tusay shayga lagaa iibinaya waa kaasoo kale macnaa waa qalinkaasaa la tusay waxa la hi qalimaan noocaasa oo kartoonkiiba intaasoo xaba ay ku jiraan isna waa jaa'is iibkaas waxaa shardiga uun wixii qofka la tusay inuu la mid noqdo hadduu la mid noqon waayo wuxuu ikhtiyaar u leeyahy inuu iibkaa ka noqdo oo iibkaa uu fasakho wahaaliuha baycu caynin shay cayna oo wax la taaban karaa iibintii weeye cayntaasi oo haa'ibatin maqan oo meesha heshiisu ka dhacayo way ka maqantay ama waabay joogtaaye lam tushaahad wax la arka maaha waxa jeebkayga ku jira ayaan intaa kaa siiye waan siistay buuri falaa yajuusu ma bannaano iibka noocaasi ay walaa yasixu mana ansaxayo shay mucayana baa la kala iibsanaya maaha shay sifaad loo sheegayo oo wuxuu leeyahy tusaale ahaan gurigayga boorama ku yaal iga iibso intaa iga siiso gurigii markaa ma arkaan waxay hore u arkeenna maaha ma ansaxayo iibkaasi shay mucayana la kala iibsanaya ama jaga aan leeyo berbere ku taalo cabirkeedu intaa yahay iga iibso hadduu idhaa un jaga iga iibso sifadaa iyo sifadaa leh taas sifaa lagu iibsado horeynu sheegna u ansaxaya laakiin shay mucayano cayiman oo aan horena loo arag imikana aan la arkahayn in la kala iibsadaa ma bannaana waayo harar baa ku jira naha nebiyu can ilgharar shaygaas wuxuu noqon doonaa hadhow la garan maayo marka halkan ui lam tushaahad aan la arag haddii hore loo arkay waa inagii sheegnay oo muddada aragtida ka soo wareegtayna shaygu aanu isku bedelahayn ka imika la arkay isha lagu hayo ayuu la mid yahay
waxaa la mid ah qofka indhahala waxay leeyihin iibkiisu ma ansaxayo waxna ma iibin karo waxna ma iibsan karo waayo dee shaygii baanu arkahayn sooma waxaan la kala iibsanaya mucayankaana waxaa shardi u ahayd in la arkayo marka isaga waa sabiil waa tawkiil waa inu cid wakiisho laakiin intuu indhaa qabay hadduu arkay shayga markuu indhabeele wuu iibsan karaa muddadaa ka soo wareegtay muddo shaygu isku bedelaya haddaanay ahayn ay aragtidii la doonaya waa xaasil halkan wuxuu kaga hadlayaa shayga la kala iibsanayo shuruudda laga rabo shayga la kala iibsanaya shuruuddan soo socota haddii laga waayo iibintiisu ma bannaano mana ansaxayso wayasixu waxaa ansaxaya buu yihi baycu kulli shayin shay kasta iibintii shaygaasi oo daahirina shay daahira shardiga koowaad waa kaa an yakuuna daahiran waa cayntiisa iyo laftiisu ay daahir tahay waa inuu yihi waxyaabaha najaasaadka oo dhan ama daahir ahaayee najaasoobay oo aan la daahirin karin iibkooda ansixi maayo maalan kaadidii saxaradii dhiiggii doofaarkii aygii cayntooda najaasa marka iibkoodu ma ansaxayo ka waran shaygu hadduu daahir ahaayo najaasa ay martay ma la iibin karaa haddii uu yahay mid la daahirin kara ha oo maro najaasa marsan tahay waa la kala iibsan karaa ila waa la daahirin karaa caynteedu najaas maaha lafteedu laakiin waxa najaasoobay aan la daahirin karin lama iibin kara isaga tusaale waxa waa subaga iyo waxyaabaha dareerayaasha ah ee najaasoobay lama daahirin karo siduu madhabku yahay walihaada mar hadday najaasoobaan lama kala iibsan karo muntafacin bihi shardiga labaadna waa kan waa inuu yahay shay leh manfaco waxtar weliba maqsuud oo dadka caqliga lihi ay u qastiyaan oo dee ay yidhaahdaan tusaale ahaan xoola ay dhaafsadaan manfacaduna waa inay noqoto manfaco mubaax shayga manfacadiisu hadday xaaraan tahay iibkiisu ansixi maayo waxaan manfacaba lahayn waxa tusaale u ah xabad quraanjaan iyo iga iibi ui quraanjo muxuu ku falay maxay u taraysaa quraanjo qof caqli li dee quraanjo ma dhaafsado xoolihiisa ama wuxuu nihi xabad beriisa midh beriisa iga iibi midh beriisa maxaa lagu falaa manfaco maqsuudaa ma leh dadka caqliga liye xoolahooda ay dhaafsadaan hadduu manfaco leeyahy lakiin manfacadiisu ay xaaraan tahayna iibkiisu ansixi maya sida waxyaabahan heesaha loo tumee dee muusigiiyo waxaa manfacadooda ah manfaco xaaraana walihaada iibkoodu ma ansaxayo miyay shardi tahay shaygaa la kala iibsanaya markaa la kala iibsanaya inuu manfacada leeyihi maya manfacada markaa ha lahaado ama mustaqbalka mid laga rajeynaya ha noqoto oo tusaale ahaan faras yaroo imika dhashay waa lakala dameer yaroo imika dhashay waa la kala iibsan karaa farasku markuu dhasho oo manfacu leeyahy waa la qalan karaa laakiin dameerka imika dhashay manfaco u leeyahy miyaad garanaysa lama qalan karo waxba kuu qaadi maayo beer kuu qodi maayo hadda manfaco ma leh laakiin mustaqbalku manfaco yeelanaya sooma marka inuu manfacada markaa la kala iibsanaya uu leeyahay shardi maaha laakiin waa inuu markaa manfaco leeyahay ama fi lma'aal waktiga soo socda mid manfacaal oo laga rajeynaya waa inuu yahay mamluukin waa inuu yahay ay lilcaaqidi qofkan heshiiska iibka ku gelayaa miduu leeyahay waa inuu yahay shardiga saddexaad oo qofku wuxuu iibin karaa shay isagu uu leeyahay ama lahu calayhi wilaaya ama ciddii lahayd buu mas-uul ka yahy xoolo markaa dad yaryaroo mas-uul isagu ka yahy ama dad waalwaalo mas-uulu ka yahy kuwaa bilwilaaya ayuu ku iibinaya mas-uuliyaddu ku iibinaya ama ciddii lahayd waa inuu wakiil ka yihi oo bilwakaala ayuu ku iibinaya kuwaana marka haddii shaygan uu naftiisa uu iibinayo waa inuu isagu leeyahy hadduu leeyahy cid kale ale anuu iibinayo ciddaa kale waa inuu mas-uul ka yahy ama waa inuu wakiil u yihi
laakiin intaa midna haddaana jirin baycu lfuduuli baa la idhaahdaa waa qof markaa iibka faduuli u geysa weeye iibkiisuna ansixi maayo cinda shaaficiya waa jiraa culimo qaba qofkii shayga lahaa hadduu ogolaado iibkaa inuu ansaxayo oo saaxiibkaabaa arkay gaarhigaagii oo qole ku warwareegayso gaarhiga yaa naga iibiya markaasuu imisaad siisanaysaa mas-uulle kuuma aha dee wakiilla kaamaha markaasay yidhaha waxaanu siisanaynaa lacag fiican dee gaarhiguba aanu magaalada ka joogin waan idinka siiye keena lacagta shaaficiyadu waxay leeyihin iibkaasi ma ansaxayo waa shayga isagu ma leh ciddii lahaydna mas-uuliyad kuma laha wakiilla kamaha laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan qofkii laha hadduu ogolaado war gaarhigaaga waan iga iibiye lacag fiican baan ku heleho lacagta qaabiro waaye waa sax waad mahadsantay wuu ansaxayaa bay leeyihin waxaanay deliishadeen xadiidkii saxaabigii curwa albaariqi rasuulka calayhi salaatu wasalaam u dhiibay diinaar oo yidhi neef adhiga on ku udxiyaysta ii soo sii neefkii buu soo siiyey isagoo dhexda soo wada ayaa 2 diinaar naga sii lagu yidhi labadii buu siiyey iibkaa dambe ma wakaalad buu haystay soo iibi baa la sii iibi miyaa lagu yidhi maya labadii intuu siiyey buu 2 diinaar midna neef ku soo iibiyey kii kalena isagoo waduu nebiga u keenay calayhi salatu wasalaam diinaarkii uu ka qaadaya neef adhiya ganacsi buu dhexda ka sameeyey soo ma ganacsigaa dee nebiga calayhi salatu wasalaam fasax uguma haysan haddana rasuulku calayhi salatu wasalaam waaba u duceeyo wax kasta oo saa u taabtaba uu ka macaashi jiray hadduu ciiddaa miise uu ka macaashi jiray ducadii nebiga calayhi salatu wasalaam ayaa ku dhacday marka kaasaa u daliila bay leeyihin baycu lfuduuli inuu ansaxayo haddii qofkii shayga lahaa uu ogolaado oo raalli uu ku noqdo waayo waxaa kaloo shuruudda ka mida oo aanu sheegin an yakuuna macluuma lilcaaqidayn labadan qofe shayga heshiiska ku gelayaa shayga waa inay garanayaan waxaanay kala iibsanayaan cayntiisa iyo laftiisa sifadiisa qadarkiisa waxaaso dhan waa inay garanayaan oo shay majhuula ama macduuma oo aan jirinba in la kala iibsadaa ma banaana hadduu iga iibso hashaydaa heblaayo neefka dhali doonto ama orgida yaryare waxarada ay riyahaygu dhali doonaan kuwa hadda jira maaha mogta ma banaano kaas waxaa kaloo shardiga alqudratu cala tasliim qofku waxaanuu iibinayo waa inuu yahay wax cidda uu ka iibiyey uu ku wareejin karo ama cidduu ka iibiye ay la wareegi karto oo shay aanad wareejin karin inaad dadka ka iibisaa kuwa banaana oo maala asamaku fi lmaa asamaku fi lbaxr inaad tidhaahdo kalluun baan soo saaraya kalluunka 10 kiilo ee kalluunaan soo saaraya iga iibso 10 kiilo halkaad ku haysaa kalluunkii badduu ku jiraa inaad soo heli doontiyo in kale lama garanayo ma idhaahdo hashaydaa candhadeeda caanaha ku jira iga iibso ama caanahayga subaga ku jira ee weli aan laga lulin iga iibso kul hada laa yajuus ma banaana ama shayga waa laga dhacayba geeliisii oo la dhacay oo rag u xaraysan buu dadka ka iibinaya wuxuu ka iibin karaa un qof ciddaa ka qaadan kara ayuu ka iibin karaa waaye marka taa marka wax lagu dhisay shuruudda marka wax lagu dhiso wa calayhi fainahu laa yasixu ansixi maayo baycu caynin shay cayn oo la taaban kara in la kala iibsado najisatin oo lafteedu najaasa sida dhiiggii iyo baktigii iyo khamrigii iyo doofaarkii iyo sidaasoo kale kii najaasoobay marka hore daahir ahaana lama iibin karo haddaanu ahayn mid la daahirin karo sidaynu hore u sheegnay walaa yasixu ansixi maayo baycu maa shay iibintii laa manfacata manfaco fiihi isaga aanay ku jirin waxaan waxtar baan lahayn sida dibqalooca
iyo quraanjo iyo dugaagan dee wax waxtaro uu leeyahay aani jirin waayo waxa in xoolo la dhaafsado waa maalkii oo la dayacay weeye idaacatul-maal shareecadu ma ogola waxaan waxtar lahayn qofka waxaan waxtar lahayn dadka intuu ka iibiyo xoolahoodii qaataana xoolahoodii baadil iyo xaqdarro ku qaato ku cunay wakadalika dee shaygii aan la garanayn majhuulka ahaa in la kala iibsaamo banaana wixii aanad wareejin karahayn marka shuruudda waxaa laga rabaa shayga la kala iibsanayo iyo ka lagu iibsanayo labadaba athaman waalmuthman labadaba shuruudda waa laga rabaa faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay ribada iyo waxyaabaha ay ribadu gasho iyo ashyaada ribadu ay gasho sida iibkooda uu ku ansaxayo manaa shuruudda iibkooda loo dhigay ribada waxaa la idhahdaa luqatan waa ziyaada waa dheeraadka sharcanna dee noocyay leedahay ribadu oo riba alfadli baa jirta wax la idhaahdo oo laba shay oo riba ay gasho oo isku jinsi ah haddii la isku bedelo wax la isdheeraysiiyo riba alfadli baa la idhaha maalan waxyaabaha ribadu ay gashay la isku waafaqsiya waxaa ka mid ah shaciir heedda haddaad galaan iyo barh heeda ka siisato waa riba alfadl waa ribo dheeraadku uu keenay ama timirtii saasoo kale haddii timir la isku bedelayo lacagtii dee isku jinsiga haddaad dolar ku bedelayso oo aad isdheeraysiiso aad tiraa $100 105 igu bedel riba alfadli baa la dhahdaa labada shay ribada gasha mar hadday isku jinsi yihiin si ribo looga badbaado waa inay isleekaadaan haddii dahab lagu bedelayo waa inu isleekaado haddii fido lagu bedelayo haddii lacag lagu bedelaya ay isku nooc yihiin isku jinsi yihiin isku magac yihiin waa inay isleekaadaan riba nasii'a baa iyaduna jirta oo laba shay oo ribowiya baa la isku bedelayaa oo cillada ribada wadaaga markaasaa dib u dhigis baa ku jirta oo labada shay ee cillada ribada wadaaga kala jinsiba ha noqdaan marka la isku bedelayo waxaa shardi ah in lagu kala iibsado naqad intaan la kala teginna la kala qaato dahab iyo fida haddii la isku bedelayo tusaale inay isleekaadaan shardi maaha saynu arki doono laakiin waxaa shardiga in marka hore naqad lagu heshiiyo oon amaah lagu heshiiyo intaan la kala teginna la kala qaato lacagti baa lamida oo shilin iyo dolar haddii la isku bedelayo waa iib dee iibka lacagahaas sarfu baa leedhaa waa nooc iibka ka mid a marka waa kala jinsi dee tanna waa dolar tanna waa shilin inay isleekaadaan waxba shardi maha mar hadday kala jinsi noqdeen laakiin waa in naqad lagu heshiiyo intaan la kala teginna la kala qaato haddii kale waa riba nasiya haddii dib u dhigisiba ay ku jirto ribalyad baa jirta oo naqad baaba lagu heshiiyey laakiin waxaa la kala tegay iyadoon la kala qaadan ribalyad baa taa leedha wuxuuhi tusaale ahaan waxaad iga iibisaa 10 garaam oo dahaba oo mise ku noqonayaan dolar waxay ku noqonayaan buuri tusaale ahaan $600 waxaa lagu heshiiyey $600 iyo dahabka in la isdhaafsado oo naqad aan amaah laguma heshiin laakiin waxaa la kala tegay iyadoon la kala qaadan waa ribalyad innaga dahabka iyo lacagta marka la isku bedelayo riba inay gashaba dadkeenna in badan uma haystaan islaantii dukaanka dahabka iska tegaysaa dahab bay amaah ku soo iibsanaysa hada laa yajuus mar haddaad dahabka dahab ku bedelanayso ama fido ama lacag iyadoon la kala tegin waa in lala kala wareego haddii kale waa ribo wuxuu yihi sheekhu wariba ribadu xaraamun weeye waana dembiyada waaweyn mid ka mid ah ilahay baa hi ya ayuha aladiina aamanuu itaquu اllaha wadaruu maa baqiya min الriba in kuntum muminiin rasuulkuna wuxuu yihi wuu nacdalay cidda ribada markaa isticmaasha lacana rasuulu اllahi aakila riba waa kii qaadanayay ha cuna ama si kala u isticmaalay wa muukilahu waa kii bixinayey wa kaatibahu waa kii qorayey shaahidey waa labadii markhaatiga ka ahaa wa qaala hum sawa
muslim baa waa isku mid buu xagga dambiga dhamaantood waa mid dambigii baashiraya mid caawinaya markhaatigu caawinaya waxyaaba xaaraanta ah qofka baashira uu kuma dambaabo qof kasta oo qayb ka noqda iyo caawiye ayaa ku dambaabaya oo arkaysa markhaatigii iyo kii qoriye maxaa lagu nacdalay iyagu ribana may bixin ribana may qaadanay tii ribadii bay caawiyeen cidii qaadanaysa ilaahayna wuxuu wala tacaawanu cala al-ithmi wal-udwan haddaba riba maxay gashaa waxa jira ashyaa markaa la isku waafaqsan yahay inay ribadu gasho dahabka laba fidada albur wabaashan qamadida aynu dhahno الشعير وهذا التمر تمرتي iyo الملح lixda riba inay gasho wala isku waafaqsan waxaana culimadu u badan yihiin ribadu lixda inaanay ku koobnayn waxyaabo kale looga qiyaas qaadanayo oo dahabkiyo fidada waxa la mid ah bay yiraahdeen wax kasta oo wax lagu kala iibsado in labada wax lagu kala iibsaday ahaan jireen salacagahan in kala isticmaalo ee waraqiga warqada ama macdaniga dahabkiyo fidada la xukum noqonaya labadaas la xukum noqonaya lacag waxa la dhaw dhab oo sababta ay ribo u noqdeen waxay leeyihiin waa athamaniya wada ashiyada lagu lacagaysta bimacna lagu bedesha afartan raashinka ah ilay shaciir iyo bur التمر iyo الملح milixna raashinka ku hagaaga raashinku bay la xukumta afartaasna waxay leeyihiin waxay ribo u noqdeen raan shaaficiyo tacaamnimo waa tacaam wax la cuno marka wax kasta oo la cuno ayaa iyagana la xukum noqonaya ribadu ay galaysa ha loo cuno in lagu noolaado qidaahan ama faakihahan ha loo cuno ama dawahan ha loo cuno waxayba dawahan loo cuno maxaa ka mid ah saalan xabaasuuda soo dawahan looma cuno waa tacaam de ribadu way galaysa waay marka dahabkiyo fidadii maxaa looga qiyaas qaata kullu ma kaana thamana al-ashyaa wax kasta wax lagu kala iibsado lacagaha oo dhan baa soo gelaya hadda la isticmaalo ribo way gashaa afarta raashinkana maxaa looga qiyaas qaata kullu mat'uum de xadiidka ayaaba ay ku soo aroortay baa tacaamu biطacaami milan bimil dii raashin lagu bedelaya ama wax la cuno lagu bedelayo yani isku jinsina uu yahay waa inuu isleekaado haddaba intaynaan akhrin kitaabku siduu u dhigay soomaynaan odhan imika markaynu soo ururino riba waxay gashaa jamiicu اlaثmaan waxalaalo wax lagu kala iibsado waa dahab fido iyo lacagihii oo dhan waxa kaloo ay gashaa ribadu kullu mat'uum wax kasta oo la cuno cuntaana loo cunayo faakihana loo cunayo dawaana loo cunayo marka waxyaabaha ribadu ay gashaa marka koobaad xagga sare kala qabso hoos baynu u daadijinaynaay waxay u qaybsameen laba qolo qolada athmaanta waxa lagu kala iibsado dahab fido iyo lacag qolada meel inoogu tiri qolada labaadna waa matcuumaadka waxa la cuno labada group bay u qaybsameen waxyaabaha ribadu ay gashaa labada group iyaga riba ma dhex marto sida la doonaa hadii la isugu iibiyo labada qolo wax riba ah iyaga ma dhex marto oo mesela dahabka hadaad ku iibsanayso raashin ama wax la cuno riba ma jirto waa la kala badin karaa waa la isku amaahan karaa lacagtii hadaad raashin ku iibsanayso ama wax la cuno riba ma jirto waa la kala badin karaa waa la isku amaahan karaa dad adiga bakhaarka tagaye raashin intaad ka iibsato lacagtina lagu qorayo riba ma jirto lacagtii raashinkana way kala badan yihiin marka labada qolo horta iyagu saasay u kala xidhan yihiinoo wax ribi ma dhex marto alathmaan walmatcuumaat masalada koowaad ay tahay in la fahmo weeye waadix mata ya labadan qolo walba ribadu goonidooday u dhex martaa oo athmaanta haddii iyada la isku iibiyo waxyaabahan waxa lagu kala iibsada dahab iyo fido iyo lacag
riba markaasay iman karta maطcuumaadka waxyaabahan la cunana marka iyaga la isku bedelo markaasay riba iman karta masalada labaad ay tahay in la fahmo haddaba sidee riba lagaga badbaadaya waxaa lagaga badbaadayaa waxyaabahan afmaanta ee wax lagu kala iibsado haddii ay isku jinsi yihiin macnaa isku magac yihiin waxaa ribo laga badbaadaya marka 3 shardi la helo kow waa inay isleekaadaan haddii la kala badiyo riba faraha lala galay laba heshiiska iibku waa inuu naqad ku dhaco ama aanu ku dhicin 3 intaan la kala tegin waa in la kala qaato tusaale dahab baa dahab ku bedelaysa si ribo looga badbaado maxaa shardiya waa isku jinsi oo kana dahab baa la kana dahab baa la say dooneen haw kala wanaagsanaada laakiin magaca dahab way wadaagaan si ribo looga badbaado maxaa shardiya التماثل isleekaansho الحلول oo in lagu heshiiyo ama ahlaan iyo التقابض inta la kala tegay la kala qaato fidada iyaduna waa saas oo kale hadii fidda lagu bedelanayo 3 shardi waa ayaa la rabaa ilaa isku jinsi oo tan fidda la lacagtii isku magac ahayd iyaduna waa saas oo kale oo dollar hadii dollar lagu bedelayo 3 shardi baa la helaa waa in isleekaadaan waa in ama ahlaan lagu heshiiyo waa in inta la kala tegay la kala qaato hadii isku jinsi 3 shardi baa ribo lagaga badbaadaya 3 shardi haduu midkood maqan yahay waa ribo noocay tahayba waa wada athmaan waxyaaba wax lagu kala iibsado laakiin waa kala jinsi kana dahab baa leedaa kana fidda leedaa kan dahab baa leedaa kana lacag baa leedaa kan dollar baa leedaa kan riyaal baa leedaa kan shilin baa leedaa waa kala jinsi oo kala magac bay wataan Sooma mar haddii ay kala jinsi yihiin athmaan baa noqdaan oo groupkii athmaanta ahaa baa noqdaan inay isleekaadaan horta shardi ma والنبي يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوها كيف شئتم إذا كان يدا بيد مر هذي لبا نوع كلا نقدان سيده دونيسان كلا بديع لكن انت لك كلا تجي ما لك كلا قاطو صالحان ذهب يفضل لبا جنسي bay kaliin waa la kala badin karaa lacag iyo dahab laba jinsi bay kaliin waa la kala badin karaa lacag ayowgii kala magac aha lacag ayow kala duwan aha waa la kala badin karaayo waynaga maanta $100 ku sarifanayna 850 waa laba jinsi oo kala duwan taana shilin Soomaaliland baa leedahay taana dollar baa leedahay marka waa la kala badin karaa laakiin maxaa shardiya labadii shardiye kala laga rabaa ila ciladii ribada wadaagaan labadu waa thamani labadii shardiyo kala ah naqdi in lagu heshiiyo marka horeba oo amaah lagu heshiin iyo inta la kala tagin la kala qaato wadaad $100 shilin Soomaaliland ku sarifanayso waad kala badin kartaa ilaa waa laba nooc laakiin waa inaan amaah lagu heshiin hadii amaah lagu heshiiyo tiraado wani $100 oo bishu markay dhamaato aan ku keeno sarifkiiso shilin ay siisi bal saacad kadib aan ku keeno haduu yiraahdo la yajus ma banaana inta la kala tagina waa in la kala qaato Umar ibn Khattab wuxuu oran jiray haduu ku yiraahdo dahab iyo fiddo aynu kala bedelano oo ku yiraahdo keen dahab ko fiddada banaanka ii yara taagna gurigan ka soo saarayaa waa ribo oran jiray Umar ibn Khattab soo raad ma marka haday isku jinsi yihiin 3 shardi baa laga rabaa groupkaas haday isku jinsi yihiin isku magaciin haday kala jinsi yihiin waa la kala badin karaa labada shardi kala la rabaa soo raad ma maxaynu ka dhamaanay groupkii athmaanta aha lacag ayowga dahab fiddo iyo lacag ayow maxaynu haray groupkii kala Sooma group kale isaguna dhexdiisa waa sidoo kale haduu isku jinsi yahay tusaalahan hadhuur baa hadhuur lagu bedelaya arbi khibaar bixin lagu bedelaya bariis baa bariis lagu bedelaya heed baa heed lagu bedelaya waa ribawi cilatu riba wadaago oo tacaamnimada ah waxa la cunay inuu yahay isku magacana 3 shardi waa riba lagaga badbaadi karaa inuu isleekaado in ama halaan marka horeba iibka lagu galo inta la kala tagin la kala qaato haduu kala jinsi iyo laba magac uu kala leeyahay tusaalahan timir iyo heed soo laba jinsi ma kala aha
maxaa shardiya in amaah la'aan lagu heshiiyo naqad lagu heshiiyo intaa la kala tegin la kala qaado mar hadday kala jinsi noqdaan waa la kala badin karaa war cad may haddaba su-aal baan idin weydiinaya haddii aad tusaale ahaan nin dahab haysa ayaa dahabkiisa rabtaa adiguna waxaad haysataa geel waxaad tiri war awrkayga ina heblaaye ee 8 jirka ah niyo waxaad igu bedeshaa silsilad dahab oo 20 garaam markaasuu waa saxe awrka keenoo dahabka berri baan kuu keenaya ka warrama arrintaas inaad fahamteen in kale aan eegaya isu eega labada shay horta maxay isu yihiin labada shay riba ma dhex maraysaa labadaa awr iyo dahab ya ma dhex marayso riba waxay dhex martaa wax tacaam isku ah magaca tacaamnimo wada wata in la cuno wadaaga ama wax magaca thamannimo wata dahab fido iyo lacag dee kana waa awr awrku dahabna maaha fidona maaha lacagna maaha isagiyo dahab riba ma dhex marayso waayo bakhaarkaad tagtay waxaad tidhi niyow 2 gadbadoodoo sokora iga iibiyo lacagtan igu lahaw ka warrama hal yajuus nacam yajuus riba ma dhex martaba ayagaa isku qolaba riba gebigeedu waxaa la kala iibsanayo o dhan 2 qolun bay dhex martaa wixii tacaamana gudihiisay ribadu ku wareegtaa wixii la cuno wixii aثmaan oo dahab iyo fido iyo lacag ku urursan gebigiisubana dhexdiisay riba ku wareegta haddaad intaa ka baxdo riba ma jirtaba ilaa dee ribada dayntii waxaa ka dhalatay mooyaane sida inaad tiraa $100 baan ku amaahinaya hadhow 110 kan riba aljaahiliya ah taas iyadu ma bannaana iyada lafteeda kala badintu unbaa ku jirta soo maha 100 iyo 110 way kala badayin sababta loo diiday waa taas marka gebigaba baabkan ribada ee dadku ay ku wareeraan intaasuu ku urursan yihi horta inaad fahamto ribadu inay gasho 2 ur maطcuumaadka waa wixii la cuno iyo aثmaantu ah wixii wax lagu bedesho oo gebigiisuba dahabka fidada iyo lacagayoga horta qodobkaa ma fahamta waxay riba gashaa inuu intaa yihi ribadu dhar ma gashaa may dhul miyay gashaa iyo guri may gawaadhi miyay gashaa maya beera miyay gashaa maya qalab dhismo miyay gashaa maya riba gebigeeduba maxay gashaa wixii la cuno qola ah iyo wixii wax lagu bedesho oo qola ah dahab iyo fido iyo lacagayo labadaa qolo riba ma dhex martaa ma iyagana riba ma dhex marto waayo cilada ribaday ku kala duwan yihiin kuwaasi waxay riba u gashay inay tacaam yihiin wax la cuno inay yihiin kuwana waxay riba u gashay inay yihiin aثmaan waxa wax lagu bedeshay inay yihiin marka labadaa qolo riba ma dhex marto qolo walba goonideeda ribadu u dhex marta qolo maطcuumaadka waxyaabaa la cuno 3 shardi marka la helaa riba laga badbaadaya hadday isku jinsi yihiin labada shay magac ay wadaagaan inay isleekaadaan in naqad lagu heshiiyo intaa la kala tegin la kala qaato hadday tacaam wada yihiin laakiin ay kala jinsi yihiin oo 2 magac ay kala wataan waa la kala badin karaa labada shardiye kalumaa la rabaa naqadka iyo kala qaadasha qoladan kale aثmaanta la idhaana hadday isku jinsi yihiin dahab dahab lagu bedelayo ama fido fido lagu bedelayo ama lacag lacagteedii lagu bedelayo 3 shardi baa la rabaa isleekaansho naqad iyo intaa la kala tegin la kala qaato hadday kala jinsi yihiin oo kana waa dahab kana waa fido kani waa dahab kana waa lacag waa la kala badin karaa laakiin labadii shardiye kala la rabaa naqad iyo taqaabud kala qaadasho gebiga baabku intaas ku soo ururaya wax su'aala qof aan inaha fahmin ya maxay amaah dahabka dahab iyo lacag la iskuma amaahan karo soo naga nidhi waxa shardiya in amaah la'aan lagu heshiiyo naqd labaduba waa thamani ciladii ribaday wadaagaan ma jirto laakiin haddaad dahabka dhar ku bedelanaysa ama raashin ama geel ama gaari ama dhul marka waad amaahan kartaa waayo riba ma dhex marta labadaas waayo intaa haddaba aynu akhrino wuxuu yihi wainamaa yakuunu ay ariba ribadu waxay ahaato oo ay gashaa-uun fii beyci dahabi dahabka iibintiisa iyo walfidati fidada iibinteeda
iyo wa fii bayci almaطcuumaat iyo waxyaabaha la cuno idan riba maxay gashaa gebigeeduba dahab iyo fido amaana dahab iyo fido maxaa la xukuma nidhi lacag iyagoo dhan shayga labaad ee gashaana muxuu noqday almaطcuumaat wixii la cuno yani sida cunistiisa dee loo qastiyo oo iidaan baa laga dhigtaa ama quud baa laga dhigtaa ama faakiha laga dhigtaa ama waa la isku daweeya daliilkuna waa xadiidka 6 shay ribadu ay gasho sheegay 6 shay labuun bay u qaybsamaan maطcuumaat wax la cunaa iyo athmaan dahabkiiyo fidada laga sheegay lacag iyaguna waa la xukumayn waay walaa yajuusu wacalayhi taa marka wax lagu dhiso laa yajuusu ma banaana walaa yasixu ansixi maayo baycu dahabi dahab in lagu bedesho lagu iibiyo bidahabi dahab walaa alfidati fido in lagu bedesho ee bilfidati fido kadalika saasoo kale ansixi maayo ilaa mutamaahilan inay isleeg yihiin mooyaane haddii dahab dahab lagu bedelaya maxaa shardiga baynu idhi isleekaansho naqad iyo taqaabud in lala kala wareegay intaan la kala tegin haddii fido fido lagu bedelayana saddexaasaa shardiga ka warrama haddii dahab iyo fido la isku bedelayo saddexa shardi waxaad ka reebtaa uun isleekaanshaha waa la kala badin karaa ila laba jinsi bay kala yihiin marka saddexdii shardi ayuu inoo sheegay oo wuxuu yihi ilaa mutamaahilan inuu ilaa kownahu mutamaahilan mid isleeg inuu yahay mooyaane oo la hubo isleekaanshihiisa haddii dahab dahab lagu bedelayo micyaarkiisa halbeegiisa saxda ah oo miisaana waa inuu isku leegi oo ma odhan kartid inuu dahabkaagu uu jajaban yahaye 10kaagaa garaam ee jajaban waxaan kuugu bedelayaa 5 garaam oo hagaagsan la jajab iyo hagaag iyo quality iyo waxaa laga eegi maayo waa inuu garaam ahaan isu leekaado warcad ma marka qofkii dahab jajaban haystaa siduu dahab ugu bedelan karaa hagaagsan ila mid leeg loogu bedeli maayo dahabkiisa lacag ha ku iibiyo kadib lacagtiisa dahab caadi ah ku soo iibso xalkiisu waa sidaas waxaa daba jira oo mas'alo iyaduna muhiim oo dadka badankooda aan ku baraarugsanayn dahabku wuxuu leeyahay wax loo yaqaan ciyaaraat يعني عيار 18 عيار 21 22 24 انك مقلده دهب كان نوع 18 نوع 12 نوع 22 نوع 24 dad baa kala yaqaan inaga dahab oo dahab ma tahay weeyaan soo dahab hadda bas 18 dahab koob iyo 20 oo miisaan ahaan isu laag ma la isku bedeli karaa may la isku bedeli karaa ومحل isugu bedeli karin waa inaynu fahanno marka la leeyahay 28 18 24 noocyada loo kala sheegayo noocyada maxay ka yimaadeen waxay ka yimaadeen nisbatu dhahabi fihi ba kala badan oo nooca 18 ka inta dahab ay ku jirta iyo nooca 22 ka inta dahab ay ku jirta kala badan marka isleekaanshoodu muxaqiq maaha mar haday noocyaba kala yihiin la iskuma bedeli karo walow miisaan ay isu leekaadaan way hada jeer wax kala ku jira dahab khaalis ma wax kala ku jira marka inta dahab ay ku jirta ayaa kala badan way naqdan ay wa kawnahu naqdan inuu yahay mid naqad lagu heshiiyay mooyaane ana amahlaan shardiga saddexaadna muxuu ahaa kawnahu maqbuudan inuu yahay mid inta la kala tagin la kala qaadanayo mooyaane oo nabiga yiri la tabiicu dhahab bidhahab illa mithla bimithl ذهب ذهب كو إيبننا إنو سليقي مويان ولا تشف بعضها على بعض هكذا بدننا وكذلك الورق وفي الضدار أساس للنبي عليه الصلاة والسلام ولا بيع مبتاع حتى يقبضه بوري ولا يجوز مبنانا أي للمشتري قفك إيبسده ومبنانا بيع ما شيء إيبيو ابتاعه إيبسدي حتى يقبضه إلا قدومه ولا وريقه راشنا نقضى ما وحكى لبها نقضى وسلموا يميضوا رباضي وحات
si gaara uguma saabsana waa shardi guud tani oo qofku shay hadduu iibsado noocu doonaya shaygaas ha noqdo kuwa ribadu gasha ama kuwaanay ribadu gelin ma sii iibin karo ilaa si dhammaystiran uu la wareegayo soo maydaan fahmin masaladaas waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi man ibtaaca طacaaman falaa yabiicu xataa yastawfiyahu qofka raashin iibsadaa yuu sii iibin ilaa cidduu ka iibsaday uu kala wareegayo ida btacta baycan falaa tabicu xataa taqbidahu haddaad shay iibsato ha sii iibinin ilaa aad la wareegayso aad guddoomayso ibnu xibbaan baa wariyey riwaayaddaas marka raashinkii waxyaabaha kaloo dhamina waa isku mid tusaale guri baad iibsatay gurigii qofkii aad ka iibsatay baa weli degan ma iibin kartid jagadii baa la mida raashin baad iibsatay qofkii aad ka iibsatay bakhaarkiisibuu weli yaalla cid kale kama iibin kartid ma banaana gaari baad iibsatay macradkii aad ka iibsatay baa weli gacanta ku haya ma sii iibin kartid walihada khaladaadka dadkeenu ay galaan maanta waxaan muraabaxada la idhaha bunuugtii ay ku dhaqmaan ay soo kordhisay waxaa ka mid a qof baa bangi u tegaya o odhanaya gaari baan doonaya inaad ii iibisaan waa kuu iibinaa bay odhanayaanoo dee macaashna waa ku saaranayna masalada asalkeeda marka laga yimaado xataa culimada banaysay shuruuddii ay u dhigeen baa laga yaabaa inaan la ilaalin shuruudda waxaa ka mid a horta bangigu adiga waa inaanu kaa iibin ilaa isagu iibsanayo laakiin inuu bangigu heshiis iib kula galo isagoo weli shayga aan sooba iibsan hada laa yajuus waa bayc maa laa yamlik waxaanu isagu weli yeelan siduu kaaga iibinaya waxaa kaloo shardiga markuu iibsado inuu la soo wareego isagoon la soo wareegin oon guddooman kaama iibin karo sida xadiia aad ku maqlayso iminkana maxaa dhacda in dukaankii ama macradkii ama bakhaarkii qalabka dhismaha lacagtii ay u shubaanoo adiga ay kudhahdaan ka qaado la kaama iibin karaan ilaa iyagu ay ka raranayaan ciddii ay ka iibsadeen oo qabdi uu dhacayo waxaa la isweydiin karaa xikmadda ku jirta waa maxay qofku shaygu uu iibsaday isagaa yeeshay inuu iibiye maxaa loogu diidaya iyadoo weli ciddii uu ka iibsaday ay hayso waxaa loogu diidayaa waxaa la rabaa inaad awood dhammaystiran u leedahay shaygan aad iibisay inaad wareejiso soo maa sharitaas shaygii aad iibsatay haddii qofkii aad ka iibsatay weli gacantiisa uu ku jiro sooma dhici karta inuu ku dafiraba oo ku dhahdo waxba kaamaan iibin orada naga tag qofkii aad ka sii iibisay maxaad ku wareejin doonta markuu arko adigoo iibiyey oo ka macaashay sooma dhici karta inuu damac galo oo idhaahdo waan ka noqdayba iibkiiba marka qofkii aad ka iibisay maxaad ku wareejin doonta sababta loo diidaya waa taas haddaba su-aasha halkan imanaysaa waxay tahay goormaa la odhan karaa shaygii waa la guddoomo waa lala wareegay shaygay ku xidhanta shaygu hadduu yahay wax gacanta lagu qaato sida lacagayowgii oo kale iyo dahabkii iyo waxyaabahaas qofku wuxuu qabdiyuu guddoomay mar hadduu gacantiisa galaba khalaas meeshii ha dhex joogabe mar haddaad sariflihii doolarkii ka qaataad jeebkaaga ku ridatay ama gacantaadaad ku haysato cid kale waad kasii sarifi kartaa de waad guddoontay isaga gacantiisa uu ka baxay hadduu shaygu manquul yahay wax qaadis iyo raris u baahanna ciddii kaa iibisay meesheedii markaad ka rarto meesha doonaysid geeyo suldadiisi iyo maamulkiisii uu ka hoos baxo markaasaad guddoontay hanti ma guurta hadduu yahay ka warrama jago guri bakhaar waxaad guddoontay qofkii kaa iibiyey shaygii markuu idin kala dhex baxo hadduu deganaa uu ka guuro hadduu weli degan yahay maad guddooman alaabe hadday u taalle uu ka rarto furayaashiiyo wixiiba uu kugu wareejiyo markaasaad sii iibin kartaa innaga maxaa dhacda nin baad jigo ka iibsanaysaa uu iska dhex deganya iska degan waa odhanaysaa intaan u baahanayo mid doonayaa kusoo marayo markaas koona iga iibiyo saad kiioo degan baad ka iibinaysa ma kuu bannaano inaad iibiso weli jagadan maadaa qabdiyeba gacantaada may soo gelin hadduu idhaahdo ka warra waxba kaamaan iibin oo ku murmo ninkaad jigada ka iibisay maxaad ku wareejin soo in lays haystaa sida iminka dee in badan dhacdo maxkamado in la iskula jiraa soo dhici mayso waay
wuxuu yidhi walaa yajuusu ma banaana walaa yasixu ansixina maayo baycu laxmi hilibkii in lagu bedesho bilxayawaani xayawaan nool isku jinsi ha noqdaan ama kala jinsi ha noqdaan soomaalidu aad bay taa ugu dhaqantaa oo ninbaa halbaa ka jabaysa ama way xanuunsanaysaa dee neefka xanuunso way iska qashaan soomaalidu caafimaadka waxaad looma eegay dabkaa dilaya bay dhahdeen deetana hashii buu odhanayaa dadkii ka iibinaya inta badan lacag lama hayo oo miyi baa la jooga ari baa loogu bedelaya aduu lugtaa qaado wan in 3 jira keen aduu waxa weeyaan jeerigaa qaado intaa keen aduu feedhaha qaado hada laa yajuus ma banaana taas isku jinsi ha noqdaan hilibka iyo xayawaanku ama kala jinsi ha noqdaan iskuma bedeli karaba way isleekaanshihi baan muxaqaq ahayn xayawaan nool waa lagu bedelan karaa laakiin hilib iyo xayawaan la iskuma bedeli karo oo nahaa can bayci laxmi bilxayawaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidka xasanka wuu diiday in hilib iyo xayawaan la isku bedelo wayajuusu waxa bannaan baycu dahabi dahab in lagu iibiyo bilfidati fido ama lacagba dee mutafaadilan xaala yihiin kuwa kala badan hadii waa kala jinsi way nagin ma hadday kala jinsi yihiin waa la kala badin karaa naqdan xaala yihiin kuwo naqad lagu heshiiyey xaala kownuhu maqbuudan baa iyaduna shardiya in lala kala wareego intaan la kala tegin wakadalika saasoo kale waxa ah almaطcuumaatu waxyaabii la cunayey oo hadday kala jinsi yihiin waa la kala badin karaa laakiin labada shardiya kale mar walba waa la rabaa oo in naqad lagu heshiiyey iyo in intaan la kala tegin la kala qaato laa yajuusu ma banaano bayculjinsi jinsigii in lagu iibiyo minha jinsigaas xaalo uu ka mid yahay waxyaabaha la cuno bimilihi isaga oo kale in lagu iibiyo oo burkii bur in lagu bedelo ama timirtii timir in lagu bedelo ma banaana ilaa mutamaailan inuu isleeg yahay mooyaane mar hadday isku magac wataan oo la isku bedelayo maطcuumna ay yihiin waa inay isleekaadaan naqdan inuu yahay mooyaane mid naqad lagu heshiiyey maxaa kaloo shardiya taqaabud intaa la kala tegina in la kala qaato wayajuusu waxa bannaan bayculjinsi jinsigii in lagu iibiyo minha xaalo uu ka mid yahay waxyaabaha la cuno bikayrihi midaan isku jinsi ahayn oo bur iyo shaciir waa kala jinsi shaciir iyo tamr waa kala jinsi waa la isku bedeli karaa mutafaadila xaalo ay kala badan yihin mar hadday kala jinsi noqdaan waa la kala badin karaa naqdan xaalo ay yihiin kuwo naqad lagu heshiiyey waa xuluul iyo taqaabud waxa weeyaan uu jiro walaa yajuusu ma banaana buui walaa yasixu ansixina maayo baycu lgarari iibka gararkuu ku jiro gararku waa maxay waa jahaalat lcaaqiba waa shayga cidhibtiisa dambe aan la garanahayn marka gararkii waa shay tusaale ahaan macduuma in la kala iibsado waxaan jirinba oo har shaydu nirig tahay dhali doonto ama awrka dhali doonto midhaha beertayda ka soo go'i doona iga iibso waxaa la mida caanaha neefkayga laga lisi doono wax in la heli dooniyo in kaleba aan la garani wey ma banaana ama inuu idhaahdo neef arigayga ka mida baan kaa siiyey $50 neefku ku noqon doono lama garanayso lama garanayo ma banaana shaygii haddaan isagii waa la garan lakiin sifadiisi haddaan la garanayna waa la mid marka baycu lgarar ma banaana oo hadhow toole wuxuu keenayaa isqabsasho waxaad tihi neef arigayga ka mida baan kaa siiyey $50 hadhow buu neefkii u weynaa soo qabsaday adna kii u yaraabaad soo qabatay soo muran maa muranka maxaa keenay qaabka marka hore wax loo kala iibsaday baa keenay wuxuuhi waxa jeebkaygaa ku jira $20 maad iga siisan markaasaad tihi ha waan kaa siistay markaasuu soo saaray furo gaadhi uu ka guuray ma furaan siistaa $20 maxaan ku falayaa furaa soo isqabsan maysaan sababta loo diidaya waa ta waxaa majhuulkee wuxuu iyo aan la garanayn cayntiisii baan la garanayn sifadiisii baan la garanayn wuxuu noqon doonaan la garanayn in la kala iibsado sababta loo diiday waa taas waxaa ku jira harar baa ku jira qimaarku isaga laftiisu ma banaana khamaarka waxa la qimaar baa la dhaha fi lugat alcarab ma banaana qimaarku markaa waa qofka inuu xoolo bixiyo
xoolo inuu dhigo si uu xoolo ugu helo inuu ku helo iyo in kalena ugu dhaxeeyo waa qararka laftiisa wanaha nabiga can algharar buu soo gelaya imikana khamaar electroniaba waddankeena lagu sheegayo dad fara badan lagu dhacay oo dad meelaha jooga ay lacag dad badan kaga gurteen mushkiladuna waxa weeye dadka xoolo jacaylkiiba ka qaalib noqdayoo dabeetana marba jarba iska xoorayaanoo arrimaha kama fiirsadaan jiifoo jaq bayna soo martay foregas bayna soo martay mid walba dadka waa lagu dhacay malaayiin baa waddanka lagaga urursay dadkuna had iyo jeer ale marka loo sheegayo ma maqlaan dhowr baa waxoogay loo sii daynayaa si dhowrkaa waxoogayga loo sii waa laaci loo dhigayay sakaarada la dabayo waxaa hebel baa foregaska ka helay $500,000 $500,000 waa laaci hadda la soco inta dambe oo dhan baa la rabaa in lagu dhaco chief oo chaqdi imsaanu intaana fashilminaanu ka qilin imsaan khudbad kaga hadlay dadku nimay dhageysan jirin marka dad wallahi waa tilay noo sheegay bari marka qofku hadii jeeraale waa inuu noqdo qof indheer garad ah waxyaabaha aad uga fiirsan ilaa imikay socdaan qaar noocaas qofkii loo leeyahay shirkad baanu nahay alaab baanu markaa iibinaa alaabtaas horta $20 baad isku diiwaan gelinaysaa lagu oranaya maxaa iska diiwaan geliyaa wax shirkadii wax jira ma bahaba 20 kaas laga qaaday horta 20 ka maxaad u bixinaysaa saad lacag u hesho inaad hesho iyo in kale waad u dhaxaysaa khamaarkii 20 kaas khamaari ka bilaabo markaas hadda lagu oranayaa alaabaad iibsanaysaa saalaan dawaa ama wax la ismariyo $200 alaabta maxaad iibsanaysaa ma alaabtaad rabtaa ma dawaad u baahantahay ma alaabta lafta isticmaalaysaa maya wuxuu iibsanayaa in 200 wuxuu bixinayaa suu lacag u helo inta dawladda maxaa laga rabaa waxa laga rabaa inaad dad keento dad kala dad baad soo jilaabaysa iyagana lacagta laga qaado qofkii aad keentaba intaas aad ku leedahay baa lagu leeyahay lacagtaadi baad bixisay dadka aad keeni doonto lacagtooda saad wax ugu yeelato inaad dad heli doonto iyo in kala garan maysid kuwaad heli doontaad soo jilaabi doontaa intay noqon doonaan garan maysid waa khamaarkii oo qaab siyaasadaysan oo reer magaalnimo ah dadka loogu dhigaya marka waa in aad looga digtoonaado wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed